dagaal qaraar ayaa maanta dib uga qarxay magaalada Laascaanood iyo agagaarkeeda iyadoo duleedka magaalada ay isku farasaareen ciidamada jabhadda SSC iyo ciidanka SNM ee Somaliland. wararku waxa ay tilmaamayaan in weerarka ay soo qaadeen ciidamada Somaliland kadib markii ay soo qorsheeyeen mar kale awood ay kula wareegaan magaalada Laascaanood oo labadii bilood aynu ka soo gudubnay gacanta ay ku hayeen ciidamada xaquudirka ee jabhadda SSC. war ka soo baxay saraakiil ka tirsan ciidamada SSC ee dowladda Qaatumo ayaa waxaa lagu sheegay inay iska difaaceen weerar uga yimid dhinaca Somaliland isla markaasna weerarkaasi waxa uu ahaa yiraahdeen mid gardarro ah oo lagu soo beegay xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. waxay sheegeen sidoo kale inay ka go'an tahay in ay meel mariyaan isku daygooda ah in ay qaataan doorkooda isdifaacida iyo in ay sharafta iyo sumcadooda ilaashadaan. sidoo kalena waxay tilmaameen in khasaare uu jiro ase ahaatee ay soo tirakoobayaan oo ay u soo gudbinayaan guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. dad goobjoogayaal ah oo aan la hadalnay ayaa waxay sheegeen in daryanka madaafiicda iyo weliba rasaasta isweydaarsanayeen dhinacyadan ay ahayd mid aad u xoogan isla markaana qaybo badan oo magaalada ka mid ah si weyn looga dareemayay. waxay tilmaameen in ciidamada Somaliland ay ku garaaceen dhowr madaafiic qaybo ka mid ah magaalada khasaarana uu jiro balse khasaaraha aan rasmi ahaan la garan karin. halka sidoo kale ay tilmaameen in ciidamo dheeraad ah oo SSC garab u noqonaya ay soo gaareen magaalada Laascaanood kuwaasi oo doonaya in ay u sii gudbaan furmaha dagaalka. dagaalkan ayaa waxa uu ku soo aaday xilli xaaladdu aad ay u xun tahay oo la isdhahayay bisha barakeysan ee Ramadaan ayay dhinacyadu xishmeynayaan isla markaana cid ku duuli doontahay ma jirto. haddaba wasaaradda gaashaandhigga Somaliland ayaa weji kale u yeeshay weerarkaas waxaana war ka soo baxay lagu sheegay in la soo weeraray ciidamada Somaliland oo ay isdifaaceen. war lagu daabacay bogagga internetka ee wasaaradda difaaca Somaliland ayaa lagu yiri kooxaha hubanta ah ee isugu jira ciidamada maamulka Puntland Soomaaliya argagixisada iyo kuwa nabaddiidka ah ee ku sugan Laascaanood ayaa waxay weerar ku soo qaadeen fariisimada ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee ku sugan duleedka magaalada Laascaanood. ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland si adag ayay isaga difaaceen weerarka ay soo qaadeen kooxaha hubanta ah oo maalmahan u dambeeyayba abaabulkiisa waday kuwaas oo ay hogaaminayso Puntland iyadoo marnaba ciidamada qaranku aanay weerar ku ahayn ilaalinayana xabad joojintii xukuumadda ku dhawaaqday tiraba dhowr jeer xilligan lagu guda jiro bisha Ramadaan ee khayrka leh oo ah bil cibaado iyo alla ka cabsi balse aanay hubantu xeerinaynin wanaaga alla ina faray ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ciidamada Somaliland wasaaradooda gaashaandhig. haddaba waxaa muuqanaysa in weerarkan sidoo kale uu ku soo beegmay dagaalka hadda socda oo aysan suuragelin karin in isimada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka tagay ee dhaqanka ah inay tagaan Laascaanood xaaladda ay qiimeeyaan tabashada ay dhageystaan kadibna ay aadaan dhinaca Hargeysa. sidoo kale waxaa la leeyahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa isagu kaalin ku leh in dagaalkan uu dib u qarxo marka loo eego in uu diidan yahay nabadeynta uga imaanaysa beelahan Soomaaliyeed odayaashooda dhaqanka. haddaba xaaladda oo halkaasi maraysa ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland ayaa la wariyay inay ku go'doomeen qaybo ka mid ah dhulkii lagu dagaalamayay waxaana warar la xaqiijiyay ay sheegeen in jiida maraaga iyo taangiga biyaha ee dagaalkii ugu cuslaa uu ka dhacay isla markaana ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland ay ku go'doomeen deegaanka lagu magacaabo Hodan waxaana la sheegay in ciidamadaasi ay ahaayeen kuwo inventory ah oo halkaasi ku go'doonsanaa in saacado ah. ciidamada jabhadda SSC iyagu waxay u sii dhaqaaqeen dhinaca
iyo deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada Somaliland sida xerada muhiimka ah ee Gooja Cadde oo haatan fariisin u ah ciidamada Somaliland. Dagaaladan soo laablaabtay ayaa waxaa dadku ay u sababeynayaan in dhinacyada marka ay kala aamusan yihiinba aysan nabad ku maqneen ee dhinacba dhinaca kale uu keensanayo fursado dheeraad ah oo uu dagaalka ku sii xoojin karo gurmadyo uu kala dalbanayo hub la isku adeegsanayo. haddaba waxaa laga cabsi qabaa in dagaalkaas baaxadiisa intan ay kasii xoogaysato oo meelo hor leh oo Somaliland ka mid ah ama dhulka Puntland la isla soo galo, taasi oo khatarta sii xoojin karta. Somaliland mar walba dagaaladan waxay ku eedeysaa dowladda federaalka Soomaaliya, kooxo argagixiso ah, kooxo nabadiid ah iyo mas'uuliyiin horey u soo maamulay Soomaaliya. dagaaladan ayaa waxa ay soo bilowdeen wixii ka dambeeyay 6 Febraayo 2023 xilligaasi oo ay ahayd xilli ay u muuqan kareen guud ahaanba shacabka in kacdoon ay ku sameeyeen maamulka Somaliland oo dilal halkaasi ka dhacay in muddo wax ka qaban waayay. kacdoonkaas oo markii dambe isku bedelay xaq u dirir toos ah oo xabadda la isku soo qaato. xaaladda ayaa weli aad u cakiran, waxaan la ogaan karin khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca rasmiga ah ee halkaasi ka jira, iyadoo aan ku soo gudbin doono waxa laalay wixii ku soo kordha xaaladda adag ee weli ka jirta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale aan u wada duceyno dadka Soomaaliyeed ee laga yaabo halkaasi dhimashada iyo dhaawaca inay kala kulmeen. dadka halkaasi ka barakacay ee daruufo adag wajahaya aan u wada duceyno. barashada quraanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaam ah, siibahaan waalidka qurbaa ku nool. waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shareecada islaamka, adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee Madrasatul Quraan Online oo ah dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca. waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka. culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xifdiga quraanka kariimka, barashada higaada afka Carabiga, barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga, axaadiista, tafsiirka iyo culum aad u fara badan. dugsigan ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida. waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la barayo diinteena islaamka. haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga Madrasatul Quraan Online. wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefanada shaashada idinka muuqda. ama shacabka Soomaaliyeed ee midnimada jecel waxaan leeyahay Laascaanood kana taala qofka jana rabo jihaad baa yaala Laascaanood ee cadawga Somaliland ee ku soo duulay deegaanada iyada meesha gabiil laga keenay Ingiriis oo diyaarada wato quwada Afrika aan duqeyn baa naga adkaan waayay. Sacad Muuse iyo Marya Calas iyo habar jecel oo Islaan wallahi nooga adkaan kareen iyo dil iyo tolan tan anaga leh rag ayagu haduu dhamaado dumarkeeda afriba ay difaacanay asalka baxay. anigoo ka imid gobolada Sanaag iyo Highland ciidankayguna uu tayo iyo tiraba leeyahay waxaan kuu sheegayaa inaan maanta inaan cambaashe anigu gacanteeda ku soo qabanayo aan dhulbahante ku hadlaynin. dhulbahante hadduu isu fiirsado aniga aan ugu fiirsan karin ma aha ciidan in cambaashe nala dagaalami maayo, dhulbahante nala dagaalami maayo. waxaan nala dagaalamayaa waa Somaliland ciidankeedii oo shaarka loo bedelo in cambaashe dhulbahante laga dhigay. waana iska celinaynaa insha Allah taala. waa niman isaaqa waxaan la daawadayaal halkan aan ku sugannahay waa goobtii hore ee dagaalka warkaanu shalay idin sheegaynay caddayntiisii u aragtaan kaarayaashii baanu gacanta ku haynaa. wiilkii nabadiidka ahaa oo ahaa bayna wabeeda ku jiray ina cambaashe gurigiisii gaadiidkiisii wixiisii waa laga wareegay. waana iska celinaynaa haddii la haydanka ka dhigo. dhallinyaradaan kala habaynaynaa, waa isdifaacaynaa, waana ka adkaanaynaa. annaga waa shacabkii, waa wadaadadii, waa ganacsatadii, waa dhallinyaradii, waa dadkii magaalada lahaa weeye. argagixisada iyagaa argagixisaa, dadka iyagaa argagixiya, iyagaa carruur laayey.
iyagaa dumar laayey iyagaa waayeel laayey iyagaa culimadii laayey iyagaa masaajidka duminaya iyagaa iskuulladii dumiyey annagu argagixiso ma nihin shaqaynaya ee isku niyadda ee isku caqliga ee isku ciidanka waanu qabanaynaa cadow ka soo nasoo weerar waa qabanay laba Soomaaliland ma jirto laba jaamac siyaadna ma jiro Soomaaliland mid baa ahayd jaamac siyaadna waa mid macnaha Soomaaliland waanu jabinay way socotaa waanu wadnaa waxa dhacaya waa annaka ridana meydkoodii waanu ku talaabsanaa ilaahay mahadi weeye dabadhilifkii hortaagnaa in cambaasho awalba Sacad Yoonis buu ahaa dabadhilifkiina hortaagnaa waanu riixnay waanu jaminay